yaa u diidan cali guudlaawe in uu tago magaalada beledweyne runtii horta hirshabeelle waxaa weeye maamul goboleedkii runtii ugu dambeeyey ee la dhiso cali guudlaawe madaxweynaha hadda joogane waa iskala soo shaqaynay meesha wuxuu ku noqday guddoomiye gobol ayuu ka ahaa markii dambena madaxweyne ku-xigeen ayuu ku noqday marka runtii maamul kastoo la dhisana wuxuu iska leeyahay konfliktigiisa runtii khilaaf iska siyaasadeed iyo yacni beelo wax tabanaya awgeed ayaa meeshaasi runtii oo madaxweynaha u tegi waayey intaan anu ka warqabo marar badan baan la isku dayay meesha inuu taga oo ragga odayaal oo siyaasiyiin ah oo u badan beesha wax tabanayso inay meesha geeyaan welina meeshii hadda muusan tegin ma suura gelin laakiin waxaa rajo laga qabaa inuu tago sida hadda ayagu maqaalaha inuu meesha tago ayaa hadda rajo laga qabaa de mar kastana yani caqabad kastoo timaadan waxaa un ila qoman dib u heshiisiin iyo wada hadal in loogu gudbo intaas ayaan runtii aniga aan fikirkeyda ka qabaa runtii hirshabeellana waxaan isleeyahay waa aniga dowlad goboleedkan kasoo jeeda runtii laxjeclo badan baa iga hayso runtii waxaan jeclahay horumarkeeda iyo isku duubnadeeda iyo inay hore u socoto ayaan jeclahay waata aad baad u mahadsantahay hirshabeelle ayaan ku guda jirnaa markaan eegno laba magaalo ayaa la filayaa doorashooyinka aqalka hoose in ay ka bilowdaan midi waa midda caasimadda ah markaasi ilaa hadda madaxweynaha uu ku shaqeeyay jowhar midna waa magaalada beledweyne oo weli madaxweynaha markaasi uusan tegin sababo khilaaf la xiriira ku aadan haddii madaxweynaha halkaasi uusan tegin kuraasta halkaasi taale 25 kursi ah ee beledweyne lagu dooran doono sidee isku qabanaysaa iyadoo halkaasi madaxweynaha tegin doorasho noocee ayaa ka dhici karto runtii waa su-aal fiican horta habraacii lagu heshiiyaa waxaa ku qoreed 17 September in deegaan doorashada laga dhigay laba magaalo hirshabeelle hadda waxaan isleeyahay doorashada labada magaalo waa lagu qaban karaa waayo magaalada beledweyne waxaa hadda tago madaxweyne ku-xigeenkii waxaa jooga yani maamul heer gobol iyo heer degmo ah ee hirshabeelle yani taabacsan waxaa taga guddoonka baarlamaanka waxaa taga baarlamaanka qaybihiisii ayaa tago meel runtii yani hirshabeelle ka maqan tahay meeshaas ma aha iyadoo xaalad kasta la xeerinayo oo runtii qofka mas-uulka uu xeerinayo wax badan aniga waxay ila tahay in hirshabeelle halka meeshaas ka maqneen doorashana gobolkaasi lagu qaban kara shacabka meesha joogaan ma diidana inay doorasho halkaa lagu qabto bis yani khilaafkii aan kuu sheegay ee siyaasadaysan muxuu ahay madaxweynuhu uu meesha la tegi waayo unbaa meesha ka jiro laakiin shacabka degan hiiraan in doorasho la qabto way ogol yihiin cidda tabashada qabta nafteeda way ogosha halkaas in doorasho lagu qabto de meesha hadduu marka madaxweyne ku-xigeenka tegi karana waxaan isleeyahay inay ka dhici karta in madaxweynaha uu tagane runtii aniga waa soo jeedin lahay way habboon tahay meeshaas waa gartay hirshabeellada maanta iyo tii shalay oo adigu aada guddoomiye ka ahayd maxaa farqiga u dhexeeya runtii hirshabeelle horta waa baarlamaankii labaad anigu ma rabo de runtii inaan hirshabeelle hadda wax ka sheega ma rabo maamul kastane dhaliilihiis ayuu leeyahay hirshabeelle runtii tashiilaad badan ma helin dowladdii hore waxay kusoo aaday iyo waqtiga dhismaheedii tan waxay kusoo aaday xilligii muxuu ahay dhismihii ama doorashadii kusoo aaday runtii marka waxaan isleeyahay madaxda hirshabeelle fursad ma helin ba hadda ay dib yani wax u dhaqaajiyaan fursad badan may helin oo arrimihii doorashada ayaa mashquul lagu yahay waxaan la eegi karaa markii doorashada laga baxa ayaa hirshabeelle waxaa la dhihi karaa waxaasaa ayaa ka jarnay waxaasaa ku kordhay waxaas ayaa la odhan karaa waata gabagabada aan isla soo gaarnay hirshabeelle waxaa aada loogu ammaanay qabashada doorashada aqalka sare oo marka laga eego maamul goboleedyada kale waxaa lagu tilmaamayay inay tahay doorasho daahfuran inay qabteen marka dadka siyaasiyiinta qaabka ay u dhigayeen markaan eegno doorashada aqalka hoose oo kuraas badan beledweyne iyo jowhar taal maxaa laga filan karaa adoo soo koobaya runtii horta waxaan rabaa inaan dhowr shay kusoo kooba doorashada hadda markaan kugu guud mara saddex qole ay eedeeda ay saaran tahay maanta ra-iisul wasaare Rooble iyo maxaa ahayd madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka waxaan leeyahay horta ra-iisul wasaare Rooble doorashadaasi waxay ka xumaada maanta adaa mas-uuliyaddeeda qaadaya sidoo kale maamul goboleedyada waxaan leeyahay shacabka intiisa badan waxay jiraan maamul goboleedyada
ayagana waxaa laga rabaa inaysan ku sifoobin wax dalka Soomaaliya maanta dhibaato gelin kara. waxaa kaloo rabaa inaan u sheego maamul goboleedyada hadday ku sameeyaan shacabkii matalaadooda ay boob ku sameeyaan waxay boobayaan kuraasta ayaga ay ku fadhiyaan waaye kuraasta maqan ma aha dadka ay leeyihiin ma aha. waxaan ognahay maanta maamul goboleedyada maamul goboleed conflict uusan ka jirin ma jirto ayadoo abaaro jiraan oo maxay ahayd dhibaato badan jirto oo conflictigaas kala qaybsanaanta maamul goboleedyada ama siyaasadaysan ay ka jirto hadday ku daraan inay boob qaawan ay muxuu ahaay u tafaxaytaan waxaan isleeyahay waxay boobi doonaan oo ay dhibaataynayaan kuraasta ayaga ay ku fadhiyaan madaxweynaha waa ugu digaa taas madaxweynimada ay ku fadhiyaan ay boobayaan tan kale guddiga doorashooyinka ayaan waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu diro waa niman dhalinyaro ah runtii aqoon leh loo doortay dalkan inay samata bixiyaan inay maanta dalkii ay geliyaan maxay ahayd muxuu ahaay dhibaato geliyaan oo colaas oo kale geliyaan oo waxaan sharci ahayn ay ku shaqeen iyaga laftooda waan ugu digayaa dhalinyarada tihiin dalkaanaad biri mustaqbalkiisa wax ka rabtiin waxaan leeyahay arrintaasi ka digtoonaada waxa la idinku dhaariyey ee muuqda sharciga raaca. waxaan rabaa marka midda macnaha Hirshabeelle runtii Hirshabeelle waa aad waxaan ugu amaanayaa doorashadii aqalka sare 8 qofood ayaa meesha laga rabaa inay ka soo baxdo madaxweynuhu wuxuu qoray intaan aanu arkay 33 ruux in ka badan in ay u ka tanaaduleen baa la ii sheegay waxay ahayd runtii doorasho daah furan oo aad runtii indhaha u soo jiidatay أنا Hirshabeelle waa deegaankii runtii waa ku amaanayaa waxaan u baaqayaa hadda midda dambane madaxweynuhu si tii hore ugu taxadiray inaysan tan ugu taxadiro oo uusan yacni ku sifoobin waxa yacni boobka ama yacni keeni kara conflict ayaa hadda Hirshabeelle ka jiro oo muxuu ahay runtii hadda soo sheegin inay mid kale uusan ka dhicin anagana waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno Hirshabeelle midnimadeeda wixii keeni kara maxay ahayd runtii inay hore u dhaqaaqdaan ama diyaar u nahay qodob kale oo ii sheegtay wuxuu ahay yani midowga musharaxiinta waa niman odayaal ah runtii oo siyaasiyiin ah oo dalkan muddo badan ka soo shaqeeyay marka iyaga laftooda in la dhageysto dalkan wuxuu wax ku yahay wada ogol in maadaama doorasho la aadayo in yani wax la isla ogol yahay shuruucdii la samaystay in la raaco iyagana in laftooda lagu tixgeliyo marka guud ahaan waxaan soo jeedinayaa in yani guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada inaysan tigrafal ku sameynin matalaadda shacabka Soomaaliyeed.